raxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxay noo tahay maalin Jumco alxamdulillaah salaamaan kusoo wada kacnay aniga caruurteedaba. Waxaa waaye Jumcada waxaa waaye special day uu noo yahay anaka. Jumco kasta waxaa ilmaha aan u sheegaa inuu yahay ciida muslimiinta. Markastana waxaa aan ilmahayga aan tusaa maalintaas maalmaha kale inuu nooga duwan yahay. insha Allah biidnillaah wax walba aan sameynayo maanta waa idinla sheer gareena. insha Allah fiidiyaha kasir waa dheer yahay laakiin ila socda hadduu Ilaahay nacam dhaho. flowerkan aabahina noo soo gado every Friday hadduu waqti uu noo helo aan ka wada, laakiin 90% every Friday uu noo soo gada. inaan ilmahayna aan tusno maalintan inuu noo yahay maalin special. flowerkaas aan biyo ku shubanaa, dhala gashanaa, subaxdii markaan soo kacno quraac difrinaan sameysanaa. maalmaha kale waxaa waa quraacdooda caadiga u diyaariya, laakiin jumcihii waxaa waaye quraac oo waxaan sameysanaa sida beer canjeero iyo waxaas, iyo maalmaha kale rooti iyo ismaris waxaas iska cunaa. waa kana beerka soo diyaariyay ilmahayga u jeedin maasha Allah. ayagana alxamdulillaah markay arkaan inuu maanta different yahay, Friday uu yahay, waxay dareemaan inuu maalmaha kale uu uga duwan yahay. beerka markaan soo sameeyaa ujeedin ceeshkaana waa jeclahay. ceeshkan haddaa saliid yar dabka ku shubtid aad saartid wuxuu noqonaa sidii sabaayada oo kale, waana macaan badan yahay. waxaan kasoo gatay meed xalaalka, inkastoo meed xalaal carab uu yahay laakiin kuwa Soomaalida inay hayaan ma ogi, laakiin maasha Allah asigana aad u macaan badan yahay. wuxuu ku fiican yahay beerka in lagu cuno. kana beerka waa soo diyaari uu yahay beerka iyo ceeshkaba. insha Allah hadda kadib waxaan aan diyaarinaa quraacda. kadib markay cunaan waxaan isku diyaarinaa inaan qadadii aan u sii diyaariyo aan u kariyo. meeshaan waxaa ii saaran hilib waaye oo lo waxaan ku shubay filfil iyo liin. kana waxaa waaye bataati aan fiiqfiiqanayo aan rabo inaan maraq yar ugu kariyo, iyo insha Allah iyo bariis cad hadduu Ilaahay nacam dhaho. meeshaan waxaa ku sameysanaya waxaa waaye tuuna oo kuwa gasaca ku jiraan. aad u macaan badan yahay. ilmahayga way jecel yihiin maalinta Friday especially. waxaan u diyaarinayaa tuunahan markay ay qadiyaan kadib si ay cunaan hadduu Ilaahay nacam dhaho. ayaga basal iyo waxaas ma cunaan. markaan sameeyo waa kala qaybiyaa. nusna waxaan ku shubaa basal, nusna waxaan ku shubaa maraq maaji iyo xawaaji yaryar bas. waa kala qaybiyaa. nusna ayaga cunaan, nusna aniga iyo ilmaha aabahoodii. haddana waxaan u diyaarinayaa fruit
fruitkan ujeedin waxaan rabaa inaan ka sameeyo smoothie inaan ka dhigana waa rabaa, juice inaan ka dhigaan rabaa. Marka insha Allah waxaa hadda aan bilaabay inaan jarjaro liinta. Marka waxaa meeshaan ii yaalo 2 liin oo jaalaha iyo cagaarka. waxaa ii yaalo orange, yani waxaa ii yaalo fruit different ii yaalo. marka hadda waxaan isku geegeynaa inta kalaro, yani se isku raacayaan oo kale. liinta jaalaha iyo cagaarka iyo cucumberkaan israacinaa. waxaan kalaan israacinaa liinta jaalaha orangekan ka wadaa iyo carrotka, iyo waxaan israacinaa qurbus ay dhahaan arano carabta makasa wax lagu dhahay af Soomaaliga. marka intaasna israacinaa insha Allah. waxaan kalaan israacinaa ilaaha afkayga been kareeb strawberry-ga iyo wixii markaas yani sida rumaanka oo kale, yani kalarada si isku raacayaan aan fruitka iskugu raacina. marka haddii adiga aad rabtid zanjabil inaad ku darsato ciirin waa ku darsan kartaa, haddaa rabin laaziman ma ahan. haddii yani waxaan ka wada aad rabtid inaad tijaabisid. marka fruitkan aad intusaa aan shiidaya hadda 2 noocan u kala sameyn rabaa. labadaas nooc halna waxaan ka dhigi rabaa juice caadi, halna waxaan ka dhigi rabaa smoothie. marka insha Allah ko waxaan ka bilaabaa horta smoothie sida loo shiidayo iyo qiyaastiisa insha Allah ila socda. marka meelaha aan ku wada shubto waa qaada, waa soo wada dhaqaa kulligooda. markaan soo dhaqo insha Allah aan soo diyaarina, markaas aan bilaaba. meeshaan waxaan ku shubtay 4 bakeeri oo sukar iyo 2 bakeeri oo biyo ah. markaan kasir aan gadgadiyo oo biyaha kala karo aan ka wada isla markaas farjideerkaan gashtaa. meeshaan hadda waxaan soo diyaarsaday markaan shiito smoothie-ga meeshaan ku miiran lahaa waay. marka hadda ko waxaan ka bilaabay carrotka iyo orange-ka iyo geedkii hadda aad intisaay. marka maasha Allah saa idin sheeg way kalarada aan ku socdaa si iskugu eg yihiin iskugu shiishiiday. marka walaalihey idinkana waxaan dhan u jeedin kulli hal meel xataa waa ku shuban kartaa, waa shiidi kartaa. wax saas yani oo xun ma ahan, mana yani macaan waa noqonaa ma xumo. bis laakiin ilmaheygiyaan rabaa, waa ogtihiin ilmaha kalarada way jecel yihiin, ahaanaan rabaa inaan ilmaheyga u sameeyo arkaan kalarkaas. markaa miiraysidna make sure yani iska hubi inaad biyaha si fiican ugu miirtid, qashinka daadisid. sometimes qashinka ma daadiyi, laakiin insha Allah mar kale idin la sheergareynaa waxaan ku sameeyo markaa aan saan u miiri kadib. marka maasha Allah waa kana waa soo diyaariyey smoothie-ga. ilmaheyga aad u jecel yihiin, ilmihiinana insha Allah u tijaabiye. idinkana fiiriya walaalaheyga. maalinta jumcaha waxaa fiican ilmaha inaa yani aad tustid inuu maalmaha kale ugu duban yahay. inkastoo maalin walba wax fiican cunno, laakiin waxaa raadisaa wax cusub oo different maalin yani jumcahaas inaa ilmaha u samaysid. hadda waxaan sameynayaa juice-ki waaye. waa 1 cup of syrup, sokortii iyo biyihii haddaa waa isku soo karkariyey, iyo 1 bakeeri oo waxa waaye pineapple waa nooca hadda aan sameynaya aan jeclahay. waxaan kalaan ku shubay 1 caag yar oo biyaha mooysaxaha iyo waxa waaye intii kale iyo waxa waaye biyihii iyo sokortii iyo waxa waaye iyo juice-kii aan isku soo qasay. si fiican inaa u qasdaa loo baahan yahay, laakiin markaa qastid dhalada ku shubanaysaa saa idin sheegay size-keegi waaye, qiyaaskeegi waaye. markaasaad aan wax u qiyaasanayo dhalada aan ku sameysanayo uu la jin yahay, waxna ma iiga soo harayaan ka wadaa. marka walaalaheyga waa kana waa idin tusaya, waa idin la sheergareeyay. waxaa kalena ma ahan bis waa idin faa'iideynayaa le maxaa gabdho kale walaalaheyga joogan ayagaba noo faa'iideeyaan. marka waxaa fiican walaalka hadduu wax ka saaya asigoo xasidnimo ku jirin inuu walaalka muslimka asigana la sheergareeyo. marka waa kana waa soo diyaariyey, ilmihiina u sameeya, familigiina insha Allah biidnillah. hataa hadduu marti uu ku imaanayo xataa waa u sameyn kartaa. waa ujeedin 1 dhalana juice waaye, dhalada kalena waxaa waaye smoothie waaye. maanta maalinteeda wuxuu ahaa inta shay aan sameeyey aan idinla sheergareeyey maanta oo jumco maasha Allah waa kana. waxaa idin rajeynaa kheyr badan idinkana. please don't forget to subscribe, share and like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.